wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska gobolka Saaxil oo fulinaysa qorshayaasha qaranka iyo qorshayaasha sanadka ayaa sanadkii 2025 qabatay kulan muhiim oo door weyn ka qaatay horumarinta adeegyada bulshada. Dad waxay si gaar ah uga shaqeysay xalinta cabashooyinka shaqaalaha iyadoo waaxda shaqadu ay ka shaqeysay in ka badan 54 cabasho oo la xiriira shaqaale kala duwan. qaar ka mid ah cabashooyinkaasi waa la xaliyay halka kuwa kalena go'aamo rasmi ah laga gaaray. sidoo kale shaqaale tiro badan ayaa dib loogu celiyay shaqadoodii kadib markii si sharci darro looga saaray shaqada. dhanka kale wasaaraddu waxay qabatay tababaro iyo wacyigelin kala duwan oo ku saabsan arrimaha daryeelka bulshada, haweenka iyo dadka naafada ah, iyadoo si gaar ah diiradda u saaraysa kor u qaadista aqoonta iyo adeegyada bulshada. intii lagu guda jiray sanadkan wasaaraddu waxay taageero gaarsiisay in ka badan 400 oo qoys oo ka kala socda bulshada danyarta ah. taageeradaas ayaa waxaa ka mid ahaa 100 qoys oo la gaarsiiyay raashin, 225 qoys oo la gaarsiiyay adeegyo kala duwan. sidoo kale wasaaraddu waxay gaarsiisay 96 qof oo naafo ah qalabka ay u baahnaayeen si loo fududeeyo nolol maalmeedkooda. kale ay wasaaraddu qabatay xusaska maalmaha caalamiga ee mas'uulka ka tahay oo ay ka mid yihiin maalinta shaqaalaha adduunka, maalinta haweenka adduunka, maalinta naafada adduunka, maalinta caruurta adduunka, maalinta caruurta Afrika iyo toddobaadka daryeelka bulshada. intaa waxaa dheer waa markii ugu horeysay magaalada Berbera lagu qabto carwada shaqo abuurka haweenka, taasoo dhiirigelinaysa kobcinta fursadaha shaqo iyo ganacsiga haweenka. sidoo kale wasaaraddu waxay tababaro siisay in ka badan 200 oo dhalinyaro ah oo ka kala socday jaamacadaha iyo xarumaha xirfadaha qaadaya fahanka sababa arrimaha bulshada ee xeerka shaqaalaha iyo muhiimadda xirfadaha. gudiyada xaafadda kala duwan ee magaalada Berbera waxaana ay warbixin ka bixinayaan qaababka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoysku la shaqeysay. kamida xafiisyadii xaafadaha iyo wasaaraddu isku xidhay waa hawsha ugu culus xaafadaha maxaan ku raadayay xafiisyoodii iyo wasaaraddii isku xidhay. wax kasta oo yimaadana gacan buu ayuu nooga geystaa iyo waxaan ula cabanaba gacan buu nooga geystaa. sahan badan buu qaadaa, sahan badan bay samaysaa oo ay samaysaa wasaaraddu. berigii hore saankaas ma jirin, laakiin imanka sahan badan buu sameeyaa had iyo jeeroo marba wixii siya nin xogogaalahoo nala socdo weeyaan. wada shaqayn wanaagsan ayaa imanka naga dhaxaysa. kuwani waa dhalinyarada ku nool magaalada Berbera oo wasaaradda shaqadu u fududeysay siday u fari lahayd xirfado kadibna u abuurtay shaqo abuur ballaaran. waxaanay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Saaxil uu hoggaanka ka yahay siduwaha wasaaraddaasi Rakad Maxamed Suldaan. dad baanu nahay maanta waxa weeyaan xirfadii ay barteen ku shaqaysanaya kambanigii ganacsiga loo aasaasay u shaqeynay meel wanaagsan u marayo. wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada ugu horeeyo siduwa Rakad aad baan isaga ugu mahadnaqaynaa. isaga hada jiraale monitoring uu sameeyo dabagal wuuna weydiiyay halka wax noo marayaan ganacsiga halka uu marayo. aad baad u mahadsantahay siduwe. wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska siduwa ka yahay Rakad Maxamed Suldaan waxaan naga dhaxaysa wada shaqayn ballaaran oo kamid ah oo aan kala shaqeynay isbedelka cimilada. sidoo wuxuu noo fududeeyay tababaraan gallo aan magaalada ku gallo ka hadlaya isbedelka cimilada. run ahaantii wasaaradda markaa wada shaqayn baaxad weyn baa naga dhaxaysay. waxyaabaha tababarka ku qaadanay waxa kamid ah isbedelka cimiladu saameynta ku heli karo deegaanka, dhibaatadiisa xagga caafimaadka. tababarkii aan qaadanay ay wasaaraddu na siisay ka dhalinyaro ahaan annaga waa tababar sii qabanay oo activity badan qabanay. 16 activity aan qabanay sawir halkii Cabdishakuur sheegay oo magaaladan ka qabanay. waxaa kamid ah dhirberis aan ku sameynay iskuulada magaalada, xaafadaha aan ku wacyigelinay dhibaatada ay leedahay dikhowga deegaanka ku imanaya, jaamacadaha aan ka galnay lecture ka hadlaya isbedelka cimilada. dhammaantood waxaan ku soo gabagaynay workshop aan ku qabanay xarunta iyo santar ee magaalada Berbera dhalinyaradu leedahay. Barasayban kamid ah xubnihii haqabtira cool system waxaan doonayaa halkan uga mahad celiyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Saaxil
taasoo nagala shaqaysay hawshii ay noo shabtay hay'adda CTF dareen taasoo noo samaysay ifismid ah ee noo furto meherad shaqo abuur ka fur gobolka magaceeda la qabtay Police-ka pointiga weyn aan oran karo waa ka faa'iido waxa weeye waa shaqo abuur maadaama dhalinyaro ahayn de bil camal ahayn imka waxaan needal dhalinyaro shaqaysto gob ku jira kamid ah xubnaha shaqeeya gobolka Shabeelle ay tahay insha Allah bismillaahir kariim waxa weeye labadii sano u dambeysay wasaaradani waxay noqotay wasaaradaha ugu quruxda badan leh ugu shaqada badan leh uguna wanaagsan bay ahayd run ahaantii taasina iskama noqotay inay kolba waxay ku xidhan tahay qofka sida uu u shaqeeyo iyo sidoo dhiiga cusub ee mashiinka uu ugu shubo ayuun bay taasina ku xidhan tahay run ahaantii marka aan anigu xagga beel ahaan aynu ka hadlayo aan aqalka chief aqalka aanu ahay wasaaradan waxay igala shaqaysay arimaha naafada oo ay ka koob tahay haddii ay tahay ciyaal naafa haddii ay tahay dad waaweyn oo naafa arimaha shaqada iyo dhalinyarta inay shaqa ay igula doonaan aniga iyo group kale oo insha Allah bismillaahir kariim heebtayada xaafadayada kamid ah alla khayra siiye inaan kan maanta sudubaha ka ah farxaan ragad oo markiisii hore ahaa nin wanaagsan kuna suntan dhalinyarnimada iyo mutadawacnimada inuu ku shaqeeyo wax badan ayuu nagala shaqay waa Qadar Axmed deeqaha hadii jeer farxaan hay'adda ragad ay bixiso dadkii soo gaadhaan baan ahay jazaakallahu khayran baa ka abaalmariyo runteedana waanu qaadanay inuu soo gaadhay wixii dambe aanu filaynana wuxuu baan leeyahay halka ku sugay ku soo samro inta waa kugu farxad waa kugu simay halka ma ka soo inta kale wuxuu baan leenahay hadaan nahay gobolka saaxil idinku idin maqantaydii soo socota aadiyad baan uga mahad celinayaa deeqaha bixiyo la soo gaadha kamida aan geesna nooga baydhin aadiyad baan uga mahad celinayaa waxaan kamid ahay dhalinyarada magaalada Berbera ku nool xaqaygii aan waayay waxaan wasaaradda shaqada waxaan u sheegay inuu xaqayga maqan yahay oo shaqeeyaan oo qof shaqeeya la raadiyeen alxamdulillah xaqayga waan qaatay waxaan u sheegay qof walaal xaqiisa ka maqan yahay inuu yimaado wasaaradda shaqada fiiskeeda Berbera waxaan u mahadnaqayaa labaad wasaaradda shaqada armaayo qoyska rahan isku duwan waxay ila qayb qaatay in la dhameeyay ninka la yiraahdo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ninka la yiraahdo farxaan isuduwe farxaan rakad ayay la dhameeyay waxa kale oo ay tabantaabiyay oo ay caawiyay isaguna farxaan ilaa markii hore ma aqoonine waxa ii soo diray maareeyaha dekada Berbera Ali Diiriye maareeyaha dekada Berbera ilaahay tabantaabiyay isna wuu tabantaabiyay sagaayii soo diray wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha intii wiila dhameeyay madaxweynaha iyo qarankayga Soomaaliland ayaan ku mahadinaya waxa weeye Cabdirashiid Caydiid Yaasiin wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshadu waxay noo qabatay annagoo ka shaqeynaa halka macsirka oo 40 oromo la keenay ayay naga saartay oo shaqaalaha iyagii meesha joogay shaqadii ay hayeen aanu ka shaqeynay ee iyagu naga haysteen baanu ka shaqeynay wasaaraduna waanu la shaqeynaa iyaduna way nala shaqeysaa alaykum warahmatullahi wabarakatuh ana magacayga Cabdiraxmaan Qowmi Cali Diiriye waxaan joogaa macsirka ayaan ka shaqeeyaa marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gobolka Saaxil ee Berbera shaqada ugu haysto qolo Oromi si nooga shaqeynay oo nooga saaran Oromadii meesha uga saaran anagu aan shaqada ka helan shaqadii qabanay aad iyo aad ay maasii duwaha gobolka Saaxil rakad iyo shaqaalaha saxaafadda aad iyo aad u maasiin si wanaagsan ay inoo qabteen Oromadii meesha uga saaran qaybo kamid ah dadka laxaadkooda kala dhiman yahay ayaa iyaguna dhankooda u mahadnaqay wasaaradda waxaana ay ka sheekeeyeen waxyaabihii ay ka wada shaqeyn jireen rakad hawsha u hayo ururka naafada iyo danta qaranka labadaba horta waa nin kursigiisa isagu ay isleeyihiin maanta marxaladan aan joognana
ninka aad wax noogala qabtay oo halka maanta taaganahay soo gaarsiiyay ama fikir badan lagu dhaliyay ama waxyaabo badan laga shaqeeyay haday sharciinta ururka tahay haday wada shaqeyntii ururada kale iyo wasaaradaha kale tahay aad barto ugu mahadsan yahay wasaaradaha kale waxaan ka codsanaynaa sida iyo sileeg in ay nool shaqeeyaan wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo gobolka saaxil waxa ay ka qayb qaadatay sidii loo furi lahaa xafiiska naafada ee gobolka saaxil taasoo tabac badan ay gelisay xogayaha fulinta gobolka saaxil nuux maxamed saleebaan waxa uu faahfaahin ka bixinayaa dhankiisa wada shaqaynta ka dhaxaysa wasaaradda shaqada arrimaha bulshada qoyska ee gobolka saaxil halkan uga mahadnaqayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada suduwaha iyo shaqaalaha ka howlgala wasaaradda waan u qirayo inay yihiin wasaarad ay joogaan dhalinyaro aqoon-yahana karti badan runtiina wax badan nala qabta gobol ahaan waxay ka mid yihiin wasaaradaha sida dhow aan u wada shaqayno had iyo jeer had iyo habeenba arrimaha bulshada iyo qarankooda heeganka u ah waxaan la ilaawi karin oo xusid mudan inay jiraan culaysyo fara badan oo ay naga qaadaan wasaarad ahaan haddaan nahay gobolka saaxil hadday tahay arrimaha soo noqnoqda oo kollayba dunida disputka iyo khilaafku kama dhammaado noloshu ku lamaan yahay khilaafku marka haddii ay goobaha shaqooyinka wax khilaafay ka dhacaan ama shaqaaluhu soo cawdo ama iyagaba laga cawdo gacmaha iyaga koowaad ee intaanay naba soo gaadhin ama aan anagu u gudbinaba markaba xalliya waxaa ka mid ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada taasi aanu kaga nasanno wax fara badan waxyaalaha kale ee iyaguna xusida mudan waxaa ka mid ah waxyaabaha human rightska iyo xuquuqul insaanka inay si dhow ula shaqeeyaan dadka nugul dadka naafada ah iyo kuwa la midka ah ama wixii la halmaada gabagabadii rakad maxamed suldaan oo ah isuduwaha wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka saaxil ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa sanadkii tagay 2025 waxyaabihii uu qabsoomay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxay u xil saaran tahay shaqaynta iyo caawinta iyo garab istaagga bulshada gaar ahaan dadyoga nugul intaa kadib wasaaraddu waxay mar walba xooga saartaa inay taageerto oo u adeegto dadka vulnerable ama dadka dadyoga jilicsan dadyoga cabanaya shaqada ka cabanaya dadyoga u baahan taageerada gaarka ah wasaaradda shaqada iyo bulshada runtii sanadka tegey waxaa noo qabsamay shaqooyin waaweyn oo qaranka qayb ka ahaa qorshaha qaranka qayb weyn ka ahaa qorshaha wasaaraddan aan kasoo dheganay iyadoo uga baahnaqa wasiirka wasaaradda runtii iyadoo noo fududeysay inuu qabanno shaqooyinka waaweyn wasaaradda shaqada iyo bulshada gaar ahaan gobolka saaxil waxaan ka shaqeynay arrimaha bulshada xoog badan aan gelinay annagoo xooga saarnay inaan 100 qoys sanadka tegey aan gaarsiino raashin kala duwan inaanu dad gaadhay ilaa 15 qof aanu siinay oo aanu siinay dharka ciidda iyo xaqoriyadba inaanu tababaro kala duwan ka geysanay magaalada oo ka mid tahay tababarka adeegyada bulshada tababarka dhalinyarada hal-abuurka iyo arrimaha adeegyada bulshada oo shaqeeya inaanu ka furnay mashaariic kala duwan oo ay daryeelka bulshada ka furnay degmada Sheekh kaasoo 5 kun oo hooyo ka faa'iideysanaya bil walba inuu socdo sanadkan oo gabagabo ku leeyahay inaanu taageerno oo caawino 150 qoys oo wasaaraddu u waday horumar inay ka taageerto dadka dhanka caruurta wasaaradda shaqada iyo bulshada waxay qabatay maalmo waaweyn oo qaranka qayb weyn ka ah oo ay ka mid tahay maalinta haweenka adduunka oo ay si gaar ah u xusnay daryeelka ama toddobaadka daryeelka bulshada oo aan xusnay marka laga hadlayo wixii nooga qabsay waaxda bulshada waxay wax waaweyn oo runta taariikhda iyo buugta ku qoran oo gobol ahaan noo qabsoomay walka degmadaba
inaanu samaynay shirka guddiyada magaalada berbera, inaanu qabanay shirka daryeelka bulshada, inaanu qabanay toddobaadka daryeelka bulshada. marka la joogo waaxda daryeelka ama horumarinta qoyska iyo haweenka, runtii waxaa noo suurtagalay inaan ugu horeyn qabano maalinta haweenka adduunka oo sanadka Berbera lagu qabto, inaan tababaro badan siino dhammaan bulshada qaybadeeda kala duwan ee ku saabsan tababarka ka dhanka tacadiyada ka dhanka carruurta iyo haweenka. waxaan xooga saarnay inaanu ka shaqeyno in 113 ka mid ah haweenka Berbera ay helaan xirfado kala duwan iyo shaqo carbinba. waxaan xooga saarnay in aanu qabano maalinta xuska carruurta adduunka, xuska carruurta Afrika iyo shaqo kasta marka ka hoos jirtay waaxda. waxaan sanadkan u shaqeynay oo xafiiska soo booqday Afrika dacwadood oo ka dhana shaqaale cabanaya shaqo laga eriyay, shaqo laga joojiyay iyo xuquuqba. ilaahay mahadii 40 ka mid ah waan ku guuleysanay, qaar aan shaqada ku celinay iyo qaar aan xuquuqdooda soo qaadnay iyo qaar aan go'aan siinay iyo qaar waxa weeyaan aan dib u heshiisiinaba. waxaan fulinay oo faafinay xeerka shaqaalaha rayidka oo la gaarsiinay shirkadaha ka shaqeeya ama loo shaqeeyaasha. waxaan ka shaqeynay inaan kala shaqeyn shirkadaha waaweyn inaan sameeyo siyaasad ka dhan ah waqtiga xagaaga waqtiga la shaqeyn karo oo aan la wadaagno shirkadaha iyo hay'adaha waaweyn magaalada ka shaqeeya si looga hortago in waqtiga kulul la shaqeeyo dadkuna dhibaateeyo ay dareemaan haween hay'aday kulul fara badan. sanadka waxaa ilaahay noo hirgeliyeen oo qaybino 96 ka mid ah dadka naafada ah ama dadka baahiyaha gaarka ah sida sida qalab isku jira baaskiilado ulo iyo waxa weeyaan qalabka lagu socdaba. waxaan qabanay oo isla kaashanay dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba xuska maalinta naafada adduunka oo kala shaqeynay. waxaan gobolka u sameeyay urur ka dhan ah ururada naafada oo ay ku midaysan yihiin. marka la joogo xagga shaqada waxa ilaahay noo hirgeliyay qabano xuska maalinta shaqaalaha adduunka oo sidaas ka soo xuso. waxaan bixinay tababaro ka dhan xeerka shaqaalaha rayidka oo aan shirkadaha ugu waaweyn magaalada ka shaqeeya. waxaan haweenka gaarkood ku tababaran xuquuqda ay ku leeyihiin xeerka shaqaalaha xeertii dhawaan 2020. waxaan kormeer kala duwan ku sameeyay goobaha shaqada ka socon shaqooyinka waaweyn annaga booqday shirkadaha sida shirkadda Sirida Ifco, shirkadda Deepwall iyo shirkadaha kale magaalada ka shaqeeya si aan u dardargelino fahanka iyo fulinta xeerka shaqaalaha rayidka xeertii dhawaan 2020. waxaan sidoo kale sameynay shaqo abuur ka mid shaqaalaha magaalada Berbera oo aan u furnay ganacsiyo kala duwan annagoo adeegsanay hay'adaha Save the Children iyo Fanco iyo wasaaradda. waxaan sanadkan noo qabsoomay ilaahay nuucadii aan qabanay carruurta shaqo abuurka haweenka oo runtii laga helay shaqo carbin iyo shaqaba. waxaan internship ama shaqo carbin siinay dhalinyaro kala duwan oo ku nool magaalada Berbera oo qaarkood maanta shaqaystaan. marka inta la joogo wasaaradda shaqada iyo bulshadu waxay mar walba u taagan tahay inay dadka taageerto. qaranka waxa uu qaabilsan tahay ka jawaabista ama u shaqeynta bulshada noocyada kala duwan. aan dhaqayaa madaxweynaha qaranka oo runtii ugu igmaday oo wasaaradda keenay mas'uuliyad ka go'aanta horumar iyo waxa weeyaan in bulshada loo adeego ay ugu horeyso wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Milki Maxamed Sanbaloshe, wasiir ku-xigeenka Muuse Gallayd iyo agaasimaha guud Cabdishakuur Ismaaciil Xuseen oo dhammaantood ay ka go'an tahay inay u adeegaan qarankooda. wasaaradda maanta meel fiican gaarsiiyey qofka soo kacay xuquuq shaqo ama shaqaba xafiisku mar walba uu shaqeynayaa saacad kasta oo leeyahay shaqeysa oo diyaar waxaan nahay wixii cabashaada ka jawaabno oo kana 100% shaqada qaranka oo fulinay laakiin intii awoodeeda ahayd oo gaarsiinay
haddii aan wax ka tagna insha allah waan saxaynaa diyaar badan saxno. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Saaxil waxa uu taagan tahay adeegida dadka danyarta iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba. Wasaaraddu waxa ay bulshada gobolka Saaxil ugu baaqaysaa inay la xiriiraan xafiiska gobolka Saaxil si uu u fududeeyo adeegyada ay bixiso gaar ahaan cabashooyinka shaqaalaha, qoysaska iyo adeegyada loogu talagalay dadka naafada ah.